waxa sharaf weyni ahayd maalintii la isku darsamayay inaan goobjoog ahaa mas'uul ahaa sida maxamed oo sheegtay waxaan ahaa ku xigeenka dhiisiga Hargeysa waxaan xusuusanahay shacbigii Soomaaliyeed ee reer Hargeysa inay baarlamaanka isku xeereen iyagoo sita faasas iyo midyo iyo tooriyo iyo seefo oo ay leeyihiin haddaanu maqli weyno waa la isku daray Soomaaliya nimanka baarlamaanka ku jira markay soo baxaan waanu gowracaynaa anigu mas'uul baan ka ahaa amniga iyo dhulka Hargeysa saraakiisha baa intii mootiri maxaan sameynaa waxaan ku yiri waxba ha sameynina iska suga waayo kelmadda way maqli doonaan waxa ilaahay qadaray saddex iyo sagaashankii markii aan imid Hargeysa yaan isii ka warhel dadkaagii loo meeshii aad ku dhalatay xaq ku lahayd waxa ilaahay qadaray inaan arkay dadkii oo maalintii aan ogaa ee 60kii sidii xamaasadu ahayd haddaanu maqli weyno midnimo waanu idin gowracaynaa waxaan ugu tagay ilaahay qadaray inay yiraahdeen haddaanu maqalno Muqdisho يغير الله من حال إلى حال قلوبت ضدكنا إلهي بمحامك هذا بدله كل بسود دونه وبدله سيدا أوجد ما دام أن كل شيء هرجيسة ومسقط رأس ماشي يعني عن كل شيء عهد قومية دي الصومالية نبر برطي مركعين هنت يسوشيكنا وقولوا ولبا أنبا قيس ولبا ويري وأبترسدوا يري محامك ماشي عنو بشام تينا واقعي صومالي كتاغنا أي واجب النقطي إنان أقبله وني ولو بهرت قريسي كن نقضه وأي